walaalayaalo dhulka dhulkeena aneegsane dhisay ankula dhisay awada dhisay dhisa dhulka dhisa walagu dhasho waloo dhinto lagu dhaawacme walagu dhasho waloo dhinto lagu dhaawacme walaalayaalo dhulka dhulkeena aneegsane dhisay ankula dhisay awada dhisay dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulka dhulkeena aneegsane dhisay ankula dhisay awada dhisay dhisa dhulka dhisa بسم الله الرحمن الرحيم وزارة هولاha guud ee guryeynta waxay booqasho iyo indhayn ku tagtay wadada laga dhisayo khaam 3 kiiloomitir injineerada wasaaradda ayaa shaqadan ku attach garaysna oo la socday mashruucan oo wasaaradda markii hore prioritieskii ay haysay iyo baahiyihii u qornaa number 1 ka ahaa mashruuc ku yimid baahi bulsho wasaaraddana ay baahidii u soo gudbisay wasaaradihii iyo dadkii concern ka ahaa runtii waxaan u mahadcelinayaa TCC committee-ga ama Technical Coordination Committee-ga wasaaradda qorsheynta lead-ka ka ahayd mashruucii asaga ahaa oo maanta 80% dhamaaday ayay wasaaradda kormeer iyo indhayn ku soo samaysay shaqo qurux badan oo ummadda anfacaysa meeshan ka socoto wadada waa 3 kiiloomitir dadka meeshan joogo ee ku nool aaga khaam waa dad beeraley waxooda abuurto dalagooda soo saarta laakiin dhibaato waxay ka haysay dalagoodii inay keenaan magaalada Kismaayo ay soo dhoofiyaan oo kadibna ay iib geeyaan suuqyada ay geeyaan because of accessibility iyo wada ma jirin wadada weyn ku soo xirayso marka wadadan 3 kiiloomitir runtii bulshada meeshan ku nool ee danyarta waxay u noqonaysaa faa'iido aad iyo aad u weyn oo caawinaysa waxaan rajaynaynaa xarig jarkeeda dhawaan inuu dhaco wadadan khaam webiga ka soo bilaabato waxay ku xiraysaa wadada weyn Istanbul bay kaga soo daraysaa marka wadadaasi waxay noqon doontaa mid laf dhabar u ah dadkan danyarta waxaad arkaysaa dadkii oo wadada dhinacyadeeda ku socdo oo biyihii dhabarka u saaran yihiin markii horena ma aysan jirin wadadan weyn ku soo xirayso ama biyaha hadda macna inay ku soo qaataan ama gawaarida ama dalaga ama wax kasto dhan marka wadadan runtii baahi bulsho ahayd ka timid annagana ka wasaarad ahaan aan soo gudbinay waana waxyaabooyinka aan runtii aad ugu faraxsanahay maanta oo aad iyo aad noo qiiro gelinayo oo noo dhiiri gelinayo in mar kasta prioritiska ama dadka baahiyahooda aan ku salayno mid bulshada ka yimaado oo kala tashano wadadan kaliya ma ahan wada kale ayaa ayadana waxa laga dhisayaa yoontoy markii tan la dhameeyay taasna bilaaban doonta already bilowgeeda wuu jiraa sidoo kale waxaan booqan rabnaa suuqa oo asagana livestock market-ka Kismaayo oo weyn oo asna si qurux badan loo dhisayo oo rajaynayna asna baahiyihii bariga loo codeeyay uu kamid ahaa wasaaradda markasta waxay committed tahay oo mataqaanaa dadaal iyo juhdi fara badan ku bixinaysaa waxa la dhisayo wax tayo leh inay noqdaan baahiyo bulshada ay noqdaan sida hadda aad arkayseen waxa sidoo kale wasaaraddu ay wadaa isdhaxgal ama wada shaqayn kor u qaadid wada shaqayneed ee ka dhaxayso wasaaradda injineeradeeda iyo kambaniyada construction-ka annagoo tayeynayno seminaaro iyo tababaro u qabanayna kambaniyada si ay kor ugu qaadaan quality of construction-ka ay sameynayaan injineerada wasaaradda waan u mahadcelinaynaa shaqo fiican bay wadaan wasaaradda howlaha guud ee guryeynta ee Jubbaland wadanka wuxuu ka soo baxay marxalad emergency ee dadka dheentooyin iyo baca iyo haloo dhise stage fiican hadda waxaan maraynaa development stage waxaan rajaynaynaa marka wada shaqaynta iyo dhismayaasha iyo wadanka horumarkiisa state-kan qaasatan inuu noqon doono mid quality oo tayo leh hadduu Ilaahay yiraahdo marka guul baan u rajaynayaa wasaaradda howlaha guud ee shaqaalaheeda iyo tiimka dhan iyo wasiirka ku-xigeenka insha Allah wasaaradaha kale iyo hay'adaha iyo dhamaantoodna waxaan ka rajaynaynaa wada shaqayn sida NIS iyo EU-da projectskeeda ay wasaaradda u hoos keeneen oo wasaaradda ay u implement gareynayso insha Allah waxaan rajaynaynaa dhismayaasha soo socdo dhan baahi bulsho
tayadeedana aan kontrolno dadkana anfacda inay noqoto. ودرار شقي وديد كسر ودرار شقي وديد كسر ورمركينا ديمان نولو دميسا نولو دميسا نولو دميسا يخسي أنكو